qofkii salaada hawinta oo daciifsada oo sidii loogu talagalay aan ula imaanin asagana 15 ciqaabood ayaa lagu ciqaabaa 5 adduunka lagula ciqaabaa 3 waa marka uu dhimanayo 3 qabriga ayaa dhexdiisa lagula ciqaabaa 3na marka uu qubuuraha ka soo baxayo adduunka 5 waxyaabood oo lagula ciqaabayo midda koobaad barakada ayaa cimrigiisa laga tirtiraa axad ku taariku salaadka dadka la mid ma aha sharaf uu leeyahay malaha ciriiri iyo rafaad ayuu ku jiraa tafash iyo dhib ayuu sheegaa habeen iyo maalin taariku salaadka lacanad allah ku soo degta habeen iyo maalin sidaa darteed ayaa barakada waxaa laga tirtiraa cimrigiisa midda labaad waxaa laga tirtiraa calaamadu ay leeyihiin dadka saalixiinta ah wejigiisa dadka iimaanka leh oo rabbigood rumeeyey tacrifahum bisiimaahum calaamadaha ay leeyihiin ayaa lagu aqoonsadaa siimaahum fii wujuuhihim min athari sujuud salaada raadkeeda ayaa ka muuqata buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala waa u iftiimaysaa qiyaamaha haddii la tago ninkan calaamadaha dadka saalixiinta ayaa ka maqan wejigiisa ayaa laga tirtiray midda saddexaad camal walba ee uu qabtaan laga ajir iyo tawaab siinaynin ileen waa axad kaafir ah dadka kaafiriinta camalada ay qabanayaan karamaadin ishtadad waa dambas la firdhiyey maalindo caasif ah oo dabeed daran ay jirta oo kaley la mid tahay ilaah wuxuu kaloo yidhi kaafiriinta camalkooda ka saraabin biqiica waase dhalanteed iyo dhaandaragaale oo kale oo meel sibsib ah ama bannaan markaa ka muuqda waa werwerka qoraxda meelay ku dhacday oo oofka ooman uu biyo u maleeyo ilaa uu yimaadaan lam yajidhu shay-a uusan waxba markaa ka helaynin wuxuu la mid yahay ka dulumaatin fii baxrin lujiyin yaqshaahu min oo mataqaana uu daboolay mawj min fawqihi saxaab dulumaatun bacduhaa fawqa bacd waa mugdiyaala qaarkood qaar kale uu saaran yahay idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha hadduu gacantiisa bannaanka dhigo inuu arka sigi maayo qofkuusan ilaahay nuur u yeelin famaa lahu min nuur assalaatu nuur salaaduna waa nuur nuurkii ayaa ka maqan cimrigiisaa barakada laga tirtiray qiimo iyo wanaag uu leeyahay markaa male camal kasta uu sameeyaan laga ajir iyo thawaab siinaynin midda afaraad kor loogu qaadi maayo ducadiisa samada ilayhi yascadu alkalimu altayib waalcamalu alsaalixu yarfacuh maca daalika camalkiisaan kor loo qaadayn ducadiisaan kor loo qaadaynin haybad iyo sharaf uu leeyahay ileen ma lehee midda shanaad xad iyo nasiib kuma laha ducada dadka saalixiinta ah assalaamun calayna wacalaa cibaadi illaahi alsaalixiin waa dadka masaajidada ku jira waa dadka jiran oo guryahooda iyagoo jiifa dukanaya si fiican ayay u gaaraysaa qabiil hebel ayaa raayay qabiil hebel ayaa badiyoo laga badiyey ayuu qaxwooyinka la fadhiyaa wacalaa cibaadi illaahi alsaalixiin ma soo gaaraysa mana ugu imaanayso ilaa salaada uu wanaajiyo cadaabyaalka asiibaaya marka meydka uu dhimanaya waxay tahay asagoo daliil ah oo dulaysan oon sharaf lahayn ayuu dhintaa taariku salaadka markuu dhimanayo dhimashadaa lagu adkeeya cadaab xunuun badan ayaa lagu cadaabaa malaa'ig ayaa loo soo diraa si saxariir oo dhib badan xayaatada uga qaada hal salaad ayuu tukan waayey oo diinta alle ayuu la imaan waayey ilaa inuu macaasi iyo xumaan sameeyo maahane maca daalika ayaa axadka marka uu dhimanayo asagoo daliila ayuu dhintaa midda kale asagoo jaayaca oo baahan ayuu dhintaa asagoo ooman ayuu dhintaa xataa haddii la cabsiiyo biyaha badda oo dhan waxay u tarayaan markaa malaha midda asiibaysa qabriga inta uu ku jiro qabrigiisaa laysku ciriiriyaa ilaa feerihiisa ay iska dhaafaan oo kuwii bidixda jiray ay midigta maraan kuwii midigta jirayna ay bidixda soo maraan qabrigaa lagu huriyaa taariku salaad gabdhaha salaada ka tegow ilaah u soo rujuuca musalsalyaalka ag fadhiyo cajalooyinka filinka habeen iyo maalin daarta taa ilaahya ka dhigtoo salaadaha aan u qumin una istaagin war ka soo kaca oo tawba keena waad u jeediin feeraha laysdhaafsiinaa qabriga inta lagu jiro midigtaa bidixda maraysa midigtana bidixday soo maraysaa qabrigaa laysku hurinaa oo cadaab shidmaayo oo ololaya ayaa dhexdiisa ahaaday sidaa darteed ayaa sidaa loogu sallidaa maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa dhacday ayaa la yidhi wiil ayaa walaashii dhimatay mar allaala markii la soo aasuu qabriga uga soo tegay kiish uu maal ugu jiro ma uusan ogeyn qof dareemayna male ilaa laga soo insiraafoo laga soo gadoomay qabrigeeda ka gadaal ayuu wiilkii xasuustoo qabrigii buu u noqdaa la yidhi qabrigii ayuu faagay mar allaala markuu fatasho qabrigii
qabrigii qoday ka gadaal ayaa wuxuu helay qabrigii oo yashcal ah oo dushiisa naar uu ku holcaayo, qabrigii oo dhanaati naarkoo kaleo muufada aad ku dubaysa u huraayey. carada ayuu ku rogay uu ku celiyey, waa soo ordoo hooyadiis ayuu u soo noqday baakiyan asagoo oynaaya, xasiin ahoo tiiraayeesan. wuxuu dhaa yaa ummaa, hooyay waxaad iiga warantaa walaashay xaaladeeda, maxay samayn jirtay hooyo? hooyadii waxay ku tiri maxaad ii su'aashay? hooyoy qabrigeedaan arkay buu dhahay oo dabka ololaaya oo naar ku shidmaaya. hooyadii way oysay ayadana waxay tiri wiilkeeyow, walaashaa waxay ahayd tatahaawana bisalaad, salaada ayay daciifsan jirtay, weliba bilkulliya ugama tegine wakhtigeeda ayay kadib dhigi jirtay. sidaa ayay noqonaysaa dadka salaada wakhtigeeda kadib dhigaaya, say xaaladoodu noqonaysaa man laa yusalli, qofkaan dukanin. gabadhii shaabadda ahayd oo xalay maqribkii cajladda u soo ijaaratay salaada subxeed ilaa laga dugta dadka ag fadhisay, seexatoo duhur iyo casir iyo maqrib, haddana maqribkii kala soo kacdoo sidaa yeeshay, say xaaladeedu noqonaysaa? tiisaa yeeshaa xaaladeeda sidaa tahay. qabriga ayaa lagu hurciyaa oo lagu ololiyaa oo lagu shidaa in allaala inta ay meesha markaa ku jiraan. midda saddexaad waxay tahay qabriga waxaa lagu salidaa thucbaan iyo abeeso, timihu ay ka dhaceen suntasay ugu badatay darteed, cijiyaalkiisa iyo waxyaabaha uu ku dhibaataynaayo ay aad iyo aad u adag yihiin. aniga abeesaan ahay buu leeyahay, suuraddiisu waa suuradda racdiga oo kale ama mtaqaanaa guguca. rabbigay ayaa isoo amray saad u dayacday salaada inaan kuu dayaco, in sidaa laguu garaaco. xilli walboo xilliga salaada la gaara ayuu u imaanaa. haddaba dhibkaasay leeyihiin dadka taariku salaadiinta ah. rabbi agtiisa qiimo iyo wanaag kuma lehee hala dadaalo, salaadana gadaal ha loo bilaabo. arrimooyinka asiibaaya marka qabriga laga soo baxo mowqifka la keeno, xisaabkaa lagu adkeeyaa. rabbi ayaa u carooda, naarta ayaana la geliyaa. maalinta qiyaama waa imaanayaa asagoo daliil ah oo dulaysan. ileen rabbi wuxuu yidhi yowma yukshafu can saaqa wayudcawna ila asujuudi falaa yastatiicuun. maalinta saaqa iyo dhudhunka la faydaayo, dhibka iyo rafaadka jira darteed oo dadka sujuudda loogu wacaayo, falaa yastatiicuuna, ma awoodi karaan dadkii salaada ka tegey. qaashicatan absaaruhum tarhaquhum dillah, waa qushuucsan yihiin, way dulaysan yihiin, dulli ayaa ka muuqda. waqad kaanuu yudcawna ila asujuud, sujuuddaa loogu wici jiray wahum saalimuun, ayagoo saalimiina oo bad iyo nabad qaba. ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. xaya cala asalaad ayaa la dhihi jiray, jiifkay dheeraysan jireen. xaya cala asalaad ayaa la dhihi jiray, tijaaradiisuu ku mashquulsanaa. xaya cala asalaad ayaa la dhahay, tv-ga ayuu ag fadhiyey, filinka ayuu fiirsanayay, adna ay fiirsanaysay. xaya cala asalaah ayaa la dhahay, naagahay la dhex sheekaynaysay. xaya cala asalaah ayaa la dhahay, meelo baas ayay fadhisay, tacsiye ayay fadhisay. xaya cala asalaadaa lalahaa, arooskay ka heesaysay. maca daalika ma awoodi karaan ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. saasaa markaa lagu bixinaa maalinta qiyaamaha. mowqifka marka la yimaado xisaabtankaa lagu adkeeyaa. dhibaato fara badan ayaa la gaarsiinaa, mashaakil adag ayuu leeyahay. rasuulkaa duceeyey saxaabada oo yidhi allaahuma laa tadac fiina shaqiyan walaa maxruuma, mid shaqi ah iyo mid maxruum ahba rabbow dhexdeena ha ooga tegin. intaa ka gadaal ayay dhaheen ayuu yidhi atadruuna man ishaqiy, war ma taqaanin shaqiga iyo maxruumka? yaa waaye ayay dheheen rasuulka ilaahayow. qaala taariku salaa, midka salaada ka tegay waaye, midka salaada ka seexday waaye, waa midka aan salaada hagaajinin. ugu horayntii ilaah subxaana wa tacaala dhibaato fara badan ayuu ku sallidaa axadka taariku salaadka ah. jahanama waadi ayaa ku yaala, waadigaasaa la dhexgeliya, waa qofka taariku salaadka ah, waa lagu huriyaa. abeesooyin ayaa markaa ku jira iyo xayaar, halkii xaya tasqin raqabata albaciir, ratiga qoorkiisa ayuu la egyahay. dherarkiisa waxaa loo socdaa hal bil. waxaa lagu salidaa axadka salaada ka tegey, wuxuu ku daadin ama uu ku cadaabaa suntiisa jasadkiisa 70 sana. uma yataharaa laxmah, hilibkiisaa qubanaaya, waa la soo samaynaa. haddana taariku salaadka saasaa loo cadaabaa. ee dadku waa inay aad iyo aad u dadaalaan, rabbigoodna ay aaminaan, si ay taariku salaadnimada iyo dhibaatada ay leedahay uga baxaan. cuquubaadka ilaah subxaana wa tacaala uu ugu talagalay wax sahlan ma aha. aad iyo
iyo aad ayay u adag tahay, laakiin maanta faan bay noo noqotay. Maanta waxay noo noqotay arrin reer magaalnimo ah. Salaada qofkii dayaca ayaan la wax la dhahayn, qofkii salaada dayacaan qabiilka laga tiraynin, qofkii salaada dayacaan la ganaaxaynin, qofkii salaada dayacaan la waaninaynin, qofkii qaaraanka diidaa qabiilka laga tiraa, qofkii qaaraanka dhiibi waaya ayaa la ganaaxaa, qofkii qaaraanka dhiibi waaya loogu hanjabaa inaan ilmaha lala duugaynin, qofkii salaada ka taga qaaraanka dhiiba ninka ugu sarreeyaa loo arkaa. war sidaabna ahee qofka salaada tukanaya qofka ugu sarreeya wuu arkaa. asagaa waxtar leh, asagaa qiimo iyo wanaag leh, asagaa sharaf alla agtiisa ku leh subxaanahu wa tacaala. qofkii salaada hawinta oo daciifsada oo sidii loogu talagalay aan ula imaanin, asagana 15 ciqaabood ayaa lagu ciqaabaa. 5 adduunkaa lagula ciqaabaa, 3 waa marka uu dhimanayo, 3 qabriga ayaa dhexdiisa lagula ciqaabaa, 3na marka uu qubuuraha ka soo baxayo adduunka. 5 waxyaabood oo lagula ciqaabayo, midda koobaad barakada ayaa cimrigiisa laga tirtiraa. axadku taariku salaadka dadka la mid ma aha, sharaf uu leeyahay malaha, ciriiri iyo rafaad ayuu ku jiraa, tafash iyo dhib ayuu sheegaa habeen iyo maalin. taariku salaadka lacanad allah ku soo degta habeen iyo maalin, sidaa darteed ayaa barakada waxaa laga tirtiraa cimrigiisa. midda labaad waxaa laga tirtiraa calaamadu ay leeyihiin dadka saalixiinta ah wejigiisa. dadka iimaanka leh oo rabbigood rumeeyey, tacrifahum bisiimaahum, calaamadaha ay leeyihiin ayaa lagu aqoonsadaa. siimaahum fii wujuuhihim min athari sujuud, salaada raadkeeda ayaa ka muuqata buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala. waa u iftiimaysaa qiyaamaha haddii la tago. ninkan calaamadaha dadka saalixiinta ayaa ka maqan, wejigiisa ayaa laga tirtiray. midda saddexaad, camal walba ee uu qabtaan laga ajir iyo tawaab siinaynin, ileen waa axad kaafir ah. dadka kaafiriinta camalada ay qabanayaan karamaadin ishtadad, waa dambas la firdhiyey maalin caasif ah oo dabeel daran ay jirta oo kaley la mid tahay. ilaah wuxuu kaloo yidhi kaafiriinta camalkooda ka saraabin biqiica, waase dhalanteed iyo dhaandabagaale oo kale oo meel sibsib ah ama bannaan markaa ka muuqda. waa wirwirka qoraxda meelay ku dhacday oo oofka ooman uu biyo u maleeyo, ilaa uu yimaadaan lam yajidhu shay-a, uusan waxba markaa ka helaynin. wuxuu la mid yahay ka dulumaatin fii baxrin lujjiyin yaqshaahu min, oo mataqaana uu daboolay mawj min fawqihi mawj min fawqihi saxaab, dulumaatun bacduhaa fawqa bacd, waa mugdiyaala qaarkood qaar kale uu saaran yahay. idaa akhraja yadahu lam yakad yaraahaa, hadduu gacantiisa bannaanka dhigo inuu arka sigi maayo. qofkuusan ilaahay nuur u yeelin, famaa lahu min nuur. assalaatu nuur, salaaduna waa nuur, nuurkii ayaa ka maqan. cimrigiisaa barakada laga tirtiray, qiimo iyo wanaag uu leeyahay markaa male. camal kasta uu sameeyaan laga ajir iyo thawaab siinaynin. midda afaraad, kor loogu qaadi maayo ducadiisa samada, ilayhi yascadu alkalimu altayib waalcamalu alsaalixu yarfacuh. maca daalika camalkiisaan kor loo qaadayn, ducadiisaan kor loo qaadaynin, haybad iyo sharaf uu leeyahay ileen ma lehe. midda shanaad, xad iyo nasiib kuma laha ducada dadka saalixiinta ah. assalaamun calayna wacalaa cibaadi illaahi alsaalixiin, waa dadka masaajidada ku jira, waa dadka jiran oo guryahooda iyagoo jiifa dukanaya. si fiican ayay u gaaraysaa. qabiil hebel ayaa raayay, qabiil hebel ayaa badiyoo laga badiyey, ayuu qaxwooyinka la fadhiyaa. wacalaa cibaadi illaahi alsaalixiin ma soo gaaraysa, mana ugu imaanayso ilaa salaada uu wanaajiyo. cadaabyaalka asiibaaya marka meydka uu dhimanaya waxay tahay asagoo daliil ah oo dulaysan oon sharaf lahayn ayuu dhintaa. taariku salaadka markuu dhimanayo dhimashadaa lagu adkeeya, cadaab xunuun badan ayaa lagu cadaabaa. malaa'ig ayaa loo soo diraa si saxariir oo dhib badan xayaatada uga qaada. hal salaad ayuu tukan waayey oo diinta alle ayuu la imaan waayey, ilaa inuu macaasi iyo xumaan sameeyo maahane. maca daalika ayaa axadka marka uu dhimanayo asagoo daliila ayuu dhintaa.
midda kale asagoo jaayaca oo baahan ayuu dhintaa, asagoo ooman ayuu dhintaa. xataa haddii la cabsiiyo biyaha badda oo dhan waxay u tirayaan markaa malaha. midda asiibaysa qabriga inta uu ku jiro qabrigiisaa laysku ciriiriyaa ilaa feerihiisa ay iska dhaafaan oo kuwii bidixda jiray ay midigta maraan, kuwii midigta jirayna ay bidixda soo maraan. qabrigaa lagu huriyaa taariku salaad, gabdhaha salaada ka tegow ilaah u soo rujuuca. musalsalyaalka ag fadhiyo cajalooyinka filinka habeen iyo maalin daarta, taa ilaahya ka dhigtoo salaadaha aan u qumin una istaagin. war ka soo kaca oo tawba keena, waad u jeediid feeraha laysdhaafsiinaa. qabriga inta lagu jiro midigtaa bidixda maraysa, midigtana bidixday soo maraysaa. qabrigaa laysku hurinaa oo cadaab shidmaayo oo ololaya ayaa dhexdiisa ahaaday. sidaa darteed ayaa sidaa loogu sallidaa. maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa dhacday ayaa la yidhi wiil ayaa walaashii dhimatay. mar allaala markii la soo aasuu qabriga uga soo tegay kiish uu maal ugu jiro. ma uusan ogeyn qof daraynayn, qof dareemayna male ilaa laga soo insiraafoo laga soo gadoomay qabrigeeda. ka gadaal ayuu wiilkii xasuustoo qabrigii buu u noqdaa la yidhi. qabrigii ayuu faagay mar allaala markuu